halganka iyo shirqoolada tirada badan ee reer galbeedka u dajiyeen dalka Soomaaliya ma ahan mid lagu soo koobi karo barnaamij daqiiqada soconaya sidaasi oo kale halganka loogu jiro shidaalka Soomaaliya ma ahan mid ku eg Kenya ee waxa tartan dheer u soo galay shirkado badan oo dalkaasi Mareykanka iyo Norway ka jiray xilligaasi shirqoolkii reer galbeedka uu u dajiyay burburintii qaranka Soomaaliya waxa lagu soo afjaray shir ka dhacay 29 bishii November 1989 filla Soomaaliya shirkad laga leeyahay dalkaasi Mareykanka oo lagu magacaabo Conoco oo ka shaqeynaysay howlaha shidaalka iyo gaaska ayaa waxay la kulantay Maxamed Siyaad Barre waxayna u gudbiyeen heshiis qoraal ah ay ku sheegayaan inay muddo 20 sano ah ay shidaal ka soo saari doonaan goobo ku yaala waqooyi bari waana halka maanta loo yaqaano Puntland sidaasi oo kale wuxuu heshiiska qeexayay in muddadaasi 20 sano ah in ay Soomaalida waxba ku yeelan doonin saami xitaa wakiil ama qof Soomaaliya ka socda uusan imaan karin meelaha ama rugaha laga qodayo shidaalkaasi haddaba si heshiiskaasi loo waafajiyo xeerka caalamiga ah ayuu Maxamed Siyaad Barre wuxuu warqadii hor dhigay xafiiskii garyaqaanka guud waxaana xafiiska laga codsaday inuu ka tala bixiyo waxa shirkadaasi codsanayso muddo gaaban kadib garyaqaankii dawladda wuxuu Maxamed Siyaad Barre u gudbiyay talooyinkani wixii dhulka badaha iyo wabiyada laga soo saarayo ama lagu aasayo in ay tahay waajib inuu aqoonyahan wadani ah uu goobjoog ka ahaado halkaasi sidaasi darteedna heshiiskii shirkadda Conoco inuu yahay mid dhagar ku dhisan haddaba is-araggii labaad Maxamed Siyaad Barre iyo wakiilkii shirkadda Conoco Mr. Raymond ayaa mar labaad ku wada kulmay xaruntii madaxtooyada Soomaaliya Maxamed Siyaad oo ka shidaal qaadanaya taladii garyaqaanka ayaa hadalkii qaatay wuxuuna ka codsaday wakiilka Conoco 2 arrimood midda koowaad goobta ay wax ka baarayaan inay ku sugnaadaan aqoon-yahano Soomaaliyeed midda labaad in Soomaalida ay yeeshaan saami gaaraya 40% haddaba sida taariikhda ku xusan iyo xogo kala duwan oo la helay ayaa sheegaysa in wakiilkii shirkadda Conoco Mr. Raymond uu ka biyadiiday codsigii Maxamed Siyaad Barre daqiiqado yar kadib markii la ismari waayay ayaa Maxamed Siyaad Barre wuxuu galkii heshiiska ku jiray indhaha ugu dhuftay wakiilkii shirkadaasi wuxuuna amar buuxa ku siiyay inuu isaga baxo dalka wuxuuna Maxamed Siyaad Barre dhagta ugu shubay wakiilkaasi Soomaaliya Soomaali baa leh oo Conoco kuma amar taagleen karto dhinaca kale qof goobjoog ka ahaa shirkaasi ayaa wuxuu sheegay in wakiilkii shirkadii Conoco uu u muuqday inuu ka awood badan yahay Maxamed Siyaad Barre una muuqday madaxweynaha Soomaaliya oo ku hanjabay we will pull out the plug in dawladdii Maxamed Siyaad Barre korontada laga jari doono si degdeg ah shirqoolkaasina wuxuu u dhacay sidii loo yiri haddaba markii 1991 dagaal qaraar uu dhex maray ciidamadii Maxamed Siyaad Barre iyo UACD oo markii dambe loo bixiyay UAC waxay sababtay in shisheeyihii ku noolaa dalka guud ahaanba ay isaga baxaan laakiin shirkadii Conoco meelna uguma dhaqaaqin dalka oo waxay ku sugnayd xarunteedii oo ku tiil kilomitir 6